السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal waxaan ninkii horta daahir calasow la odhan jiray waa isceebeeyey, nawjadaadina waa qaaday runtii. daahir calasow wuxuu iska dhigi jiray nin maaragtay farmaajo taageersan, laakiin xaqiiqdii ma taageersanayn. isagu marka runta la eego wuxuu taageersanaa sheekh shariif, hase yeeshee sheekh shariifna lacag buu ka doonayay, lacagtii buu siin waayay. saa awgeed cidna ma taageersanayn, cidna lama shaqayn, in murashaxa lama shaqayn daahir calasow. waa iska dee adigu waxyaaba iska dadka iska dhexyaaca waa iska samsamayn jiray, laakiin cidna xaqiiqada ma taageersanayn. taasoo ceebba maaha, oo farmaajo dee dad badan baan taageersanayn, laakiin markii la doortay dee qasabay anaa ka mid a, ani ma taageersanayn. nin walba oo janalkan ku xidhani wuu ogyahay anigu murashaxayga aan taageersanaa wuxuu ahaa cali maxamed geedi, ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi buu ahaa. laakiin dee kanaa shacabku doorteen, farmaajoay doorteen shacabku, isagaanu taageerayna. afartaa sannadood ee xadhay uu xukunka hayo waan taageeraynaa haddaan wax qalada la iman. hadduu wax qalada la yimaadona dee ka joog baan odhanaynaa, taasu ceeb maahay. laakiin waxa ceeba ninkanu markii uu maaragtay ninkan uu yimi madaxweynaha uu noqday, waxyaabuu ku cadaadinayay. dabcan wuxuu rabay sheekada ra-iisul wasaaraha iyo waxaa inuu maaragtay lug ku lahaado. si xuna meesha waa u dhex galay xaqiiqa ahaan, xagga dambaan ka sheegi doonay. arrintii ra-iisul wasaaraha ee fafaalayaal badan markuu eegay waxaan u maleeya dadkii uu filayay waa socon weyday. halkaasuu dagaal ka bilaabay, dagaal cidiya ku dirir ah ayuu bilaabay. waxyaabaha ugu layaabka badan leh waxaa ka mid ah kiliibkan hadda idin tusi doono. waxa weeyaan yani dee qof dhintay unbaa samayn karaa waxyaabaha caynkaas. horta ilmaha caruuri wuu arkayaa kiliibka kanu in laysku rakibada hadalla aan islahayn laysu soo minguuriyay. ilmaha yaraa caruurtaabaa arkaya.
وحنا وقدر لها إنه اسكو ديرو سوماليلاند iyo halkaa uu mushkilad ka abuuro iyo farmaajo dhexdooda laakiin farmaajo hadalkiisa dee macruuf buu ahaa ilaa intii uu howlaha ka waday abaabuladiisa min yani sanadkii doorkii xasan sheekh xataa baa la ogaa yani wuxuu ra'yigiisa somaliland ogaa marka kan ilmaha caruurtii ma sameeyo kiliibkan wuxuu ku jiraa websitekiisuu ku jiraa oo aad ka arki doontaan wuu ku jiraa xagga samaynta meelo kala ku qoran laakiin meelaha kan isaga isla leh channel badan buu leeyahay wuxuu leeyahay dhul badan oo uu akhbaarta qaar ku u diidan yahay websitekiisa iyo magaciisa in lagu arko meelo kale uu geliyaa 100 website buu leeyahay iyo kilaab uu ku shaqaysto buu leeyahay oo fara badan marka waxba ayaanay ku hodmina yani waxa ku qoran kiliibka websitekiisa dawada ku jira waa lagu arkay meeshana isaga isla leh halkan kiliibka ku qoran isaga isla leh bal marka hore kiliibka daawada meesha waxaana ka dambaysiinaya kiliibka laga soo minguuriyay hadalladaas oo aad arki doontid yani kelmad walba meesha laga soo jaray aad arki doontid si fiican u arki doontid ayaan ku xijinaya oo iska waadaxa dee muuqda bal horta daawada kiliibkan Somaliland waqooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay waa in meel xun la geeyo ما آخرا ندرنا آخره هذا مالك قدام بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران سومالا وغوي دتك دقن يعيد كلو صوماليا ربط إني دبتو وما يستاهل كرا نور يستاهل كرا أنا يدين شيء جاي وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا مالك قدام بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران ودعوتين kan laga soo guuriyayna waa kan la daawada waalaheen Soomaaliland waqooyiga dadka degan in la fariisto waxa ay ku qanacsan yihiin si midnimadii loo sugo in la siiyo maxaa yeelay annaga midnimada noogu weyn wax walba in lagu qanciyo wax alla waxay rabaan in lagu qanciyo maxaa yeelay waxaan ka hadlayno ma aha hal sano iyo 4 sano ma aha 30 sano ka hadlaynaa iyo wax ka dambeeya 100 sano iyo carruurtina ka hadlaynaa marka dadkaas inaan soo dhaweeyno waalahena oo negotiation dhab ah la galo oo lagu qanciyo wax alla waxay raali ka yihiin si iyaga naftigoodu ay qayb uga noqdaan midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed qolka oo aan ku magacaawno al-shabaab iyaga naftigoodu waa dhalinyaro wiilasheena ah oo la khiyaamay oo been loo sheegay inaan soo celino aan cafis u fidino oo aan iraahno nolol iyo mustaqbal yaa leedihiin hasku keen qarxinna hasku keen qarxinna idinkana naar ha gelina annagana adduunka noo aqoonsanina inaan raahno aniga markii aan joogay 300 yaa markiiba noo timid oo aan mushahar u bilawnay oo meeshii sarintii aan dejinay markaan ka soo tagay 3 bilood ka bacdina kuunay gaareen hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaan shacabkii waxay aamineen dawladdii markii de shacabkii dawladda is wataan shabaab iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay waxa lagu hor istaagayaa markii annagu waan kala qaybsanahay qabiil u qaybsanahay markii dawladdii iyo shacabkii kala qaybsan yihiin markaasi dawladdaas nafteeda san xigmad iyo talo aysan haynin ay ku hanato qulubta shacabka markaasi haddii cid walba oo cadow kugu ah waa ku dhibaysaa marka dhalinyaradaasi inaan saas aan xalkooda aan halkaas ka raadino waxa soo haray dawlad waxay ku shaqaysaa dhaqaale markii shacabku aamino dawladdan inay tahay dawlad daacada dawlad run badan dawlad u shaqeynaysa ee amaano ah shacabkii way la shaqeynayaan waa xaqiiqo way dawladna waxay ku shaqaysaa revenue
dhaqaalaha shacabka laga aruuriyo iyo dawladdu ku shaqeysaa lacagta kama timaado cirka kama timaado geed lagama guro annaga hadda halkaan aan fadhino waxaan bixinaa mushaharkeena 50% 30% income tax aan u bixinaa 20 kalena waxaan ku bixinaa hadda soo meeshaan ma fadhino waxa free ah dalkan oo kaliya waa hawada hadda soo halkan ma fadhino dawladdan u shaqeynaa maxaa yeelay meeshaan lacagan ka bixinay nin walba soo baxay wuxuu kharash gareeyay maxaan ku yiraahdaa wuxuu kharash gareeyay shidaal waa qaadanaysa shidaalka ku shubanaysa dawladda lacag siinaysa haddana tax laga jira cuntaan cunna hadda halkan cuntadii ninka odayga ah wuxuu nagu jaaj gareeyay canshuur isna canshuurta dawladdu siinaya farta qaado dawladda lacag siinaysa laakiin maxaa haysheen waxa haysheen amni waxa haysheen iskool free ah waxa haysheen caafimaad waxa haysheen jidad iyo buunda aan jabaynin waxa haysheen nolol fiican haysheen in shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo marka dawlad ma shaqeyn karto hadaadan taageerin hawada kaliya free ah inta kale waa inaad bixisid lacagta lacagta aad dhiibtidna oo canshuurta ahna aday kugu soo noqonaysa $1 oo laga xadaayo ama qof jeebkiisa gashanay ma jiro gacanta laga goona qofkii qaato waa iska kaftamaya ما آخر ندرنا آخر كدرن مركا قفكي ومدة وحي لقى أروي قاته وأنا شرفت كده عادي وأنا إيمان حن ومدة كبر إحنا ولا نكره وإن ملح لقيه وعدها يا رنت مركا دبت وحيتها ظاهر على الشخصيات حن رنتي شخصيات حلوة لكن هيك أوتشو حق السيسي الصومالي Soomaalidu waxa weeye iyaga magaca u sameeyay qof xun oo akhas naas oo aan wax ilaalay iyo wixii xeeriyaan wax arkaysa maalin walba gabadh buu haystaa gabdhaha Soomaaliyeed ee wariyaasha ama saxufi kuwan fanaaniinta ama kuwa kale oo dumar la qabo ayuu maalin walba haystaa wuxuu doono kula hadlaa yani waxa Soomaalidu kama diidido qofka caynkaale baa meeshii uu furtay loo camiraya soo garan gabdha muxsinaad oo jidkooda ilaaliyay oo sharaf leh oo maalin walba caayaya oo kiriba xun intuu sida kan isu geegeeyo oo shakhsi waa insaan yani dhintay weeye wax iskuma falay weeye kaasoo kale de inaga maaragtay qaladka inaga ale markaynu u camirno waa loo camiraa shakhsiyad caana laga dhigay isna wuxuu bilaabay inuu de hadda waxa weeye waxaan uu samaynaya waa jidgooyo u dhigtay dawladdii yani waxaan rabo haddaan la samayn shakhsiyaadka ninkan uu haysto Siyaad Maxamuud Shiray waxa la leeyahay wuxuu ku haystaa ma jiro waxa weeyaan waa jidgooyo ninka baad buu ka rabaa ogaada dadka ku qoran website-kiisa rag badan oo kaas oo hebel waa khaayin oo kan lacag buu cunayo kan waxa uu sameeyo kaas waxa uu sameeyo meesha ku qoran dadka lacag baa laga wada sugaya baad buu ka qaadaa ninka aad ka aragtay halka ay sawirkiisu ka bixi waayo nin aan lacag bixin kii lacag bixiyo waa laga saarayaa meesha waxa caynkaasi dhartinimada abuu ku shaqaystaa Soomaali baana u camirtay oo heerka gaarsiisay marka waxa weeye horta runtii dad baa qaaday maanta waxaanu ka fikireen baa helay waayo waxaanu qiyaasin oo aanu cabirin shucuurta dadkaanu maanta aanu cabirin tan seegtay taas waayo waxaan la tagay sidii biyadaada la tagay ummadii oo dhan baa ku kacday Soomaaliya waayo waxa weeye shucuurta dadku meesha ay joogto baanu ogeyn iyo maanta rabitaanka dawladnimo ee ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay iyo basaylka waxa kuwii cid u xigay isaga ama asxaabtiisa ahayd ama ahalkiisa ahayd waa ku kacday Soomaaliya taas waxa weeye bisaylka ay gaadhay maanta Soomaalidu iyo sida loogu baahan yahay dawlad way waa arrin wanaagsan waxana wanaagsan ninkan oo kale iyo kuwa la midka inaan loo camirin website-yada iyo channelada ay leeyihiin inaan loo camirin ee la ignore garayo waayo haddii kale dee waxa saas uu noqonayaa waxa weeye ummadii oo dhan jidgooyo baad buu qaadayaa nin mas'uul oo halkaas buu jidgooyo u dhiganayaa oo baad qaadaya dawladdii buu leeyahay maxay waxaan qofkan u shaqaalaysiinayaan kan u shaqaalaysiinaya inay maskaxdiisa ku socdaan buu doonaya runtii waxaan cajalad dhamaystiran baan kasoo duubayaa hadeer ujeedadeedu waxay ahayd labadan clip inaan yara muujiyo khayr baan idiin rajeynaya cajalad dambaynu ku kulmi doonaa subxaanaka allahuma bixamdika astaqfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu